السلام عليكم daawade waa markale muuqaaladeena taxanaha aan kaga warameynay maxay Soomaalidu uga bixi lahayd faqriga sababta lixaad ee keentay Soomaalida faqri ka buuxweeda waxay tahay waxaynu ka baqanaynaa inaan guul dareysano qodobkan haddaynu diintana suubanno cuskano waa mid siiradii rasuulka iyo dhaqankiisa ka hor imanaysa maxaa yeelay waad ogtahay in nabigu kalba tallaabo u qaadi jiray si diinta islaamka u horumariyo tallaabadaas oo marmarka qaar noloshiisa halis gelin jirtay kadib markii jihadka la waajibay ayay khatartii ugu weyneed ee loo bareeray timi maxaa yeelay jihadku waa laba midkood inaad guulaysato ama in aad shahiido haddaba daawada inta dib naftaada ugu noqoto qiimee fikirkaaga ma tahay mid marka fikrad fiican ay ku soo dhacdo ka baqa hirgelinteeda oo yidhaahda naga dhaafo intaasan guuldaraysanaya haddii aad dabeecadaas leedahay ogow inuu qodobkani ku haysto oo uu qayrkaa kaa reebi doono daawada miyaad ogeen markaad adduunka imanaysay inaad ka soo baxday caloosha hooyada oo wakhtigii aad ka soo baxday ahayd marxalad cabsi badan oo wax kasta inay dhacan ay suuragal ahayd markaa waxaan odhan karnaa imtixaanka adduunya iyaga ka bilama khatar markaa waxa fiican inaad maanta go'aan qaadato oo hirgeliso fikradaha fiican adigoo aan ka baqayn sababta toddobaad ee la odhan karo Soomaalida faqriga kaga bixi karnaaday waa inuu mar walba ka fikirna caqabadaha oo kaliya marnaba aanan ka fikirin midhaha dambe helayno hore loo yidhi dadka nolosha horumar ka gaadhay waxa u muuqda oo kaliya midhaha dadka guuldareystayna waxa u muuqda oo kaliya caqabadaha iyo dhibaatooyinka dadka horumar gaadhay waxay ku kalsoon awoodooda waxay ku kalsoon hal abuurnimadooda waxay diyaar u yihiin in khatar kasta oo soo wajahday inay u bareeraan maxaa yeelay waxay aaminsan yihiin odhanaysa the higher the reward the higher the risk oo macnaheedu noqonayo markastay khatar sareyso waa markastay abaalgudku sareeyo laakiin si khatarta ay geliyaan dadka horumar gaadhay waa khatar diraaso ku dhisan oo laga fiirsaday laguna sameeyay baadhis iyo shaandhayn oo uu qaadan khatar la iska gelayo siin dhalaa dadka hodanka waxay aaminsan yihiin xitaa haddii ay khasaaraan inay mar labaad u sameyn karaan lacag dadka fuqarada waxay aaminsan yihiin in haddii ay hawl ku dhaqaaqaan aanay hawsha ku guulaysaneen ay ku guuldaraysanayaan maxaa yeelay badankooda naftooda iyo awoodooda kuma kalsoona waxaanay mar walba eegaya dhinaca caqabadii mushkiladda sababta sideedaad waxay odhanaysaa waxaanu ku liidanaa bandhiga waxaanu iibinayno ganacsiga ka sameynayno adigu naftaada dub qiime oo isweydii ma tahay qof waxa uu haysto uu doonay inuu dadka ka iibiyo u bandhigi kara oo ku qancin kara dadka kale haddii aad sidaa tahay waxaad ka mid tahay dadka dhaqaalo buuna ka samayn kara ganacsigooda qodobkan waa habdhaqanka dadka horumaray waana sir ka mida sira ay guusha ku gaadheen hase yeeshee dadka faqiirkaah aad bay ugu liitaan inay soo bandhigaan qiimahooda iyo qiimaha alaabtooda sababta sagaalada ee faqriga uga bixi karlaan waa mushkiladda inagu timaado ee naga awood badan sida la wada ogyahay inaad hodan noqotaa maaha mid fudud waa mid ay ka horeyso dhibaatooyin fara badan iyo caqabado aad u badan kufid iyo kicib khasaare iyo daal ayaa ka horeysa hodantinimada sidaa awgeed bay dadka fuqaradahi aan u adkaysan karin mushkiladaha maxaa yeelay iyagoo xujo ka dhiganaya mushkiladda ayaa naga weyn haddaba dadka dhibtiya mushkiladda dusha u rita waa qaar u dhaqma sida qisadan oo kale waxaa jiray nin beerolo ah oo beer ka shaqayn jiray maalin ayaa waxa uu faraskiisa saaray wuxuu alaab beerta kaga shaqayn jiray kadib faraskii ayaa dhaqaaqay isaguna uu ka daba dhaqaaqay si kadiisa ayuu faraskii ugu dhacay ceel dheer oo waddada bartankeeda ku yaala oo af ballaaran waxa uu isku dayay inuu faraska ceel ka soo saaro laakiin kumuu guulaysan kadib waxauu damcay inuu dad iskugu yeedho si ay u caawiyaan siduu faraska uga soo saaro ceelka laakiin nasiib darro kumay guulaysan inay kasoo saaraan faraska ceelka aakhirkii waxay dadkii iyo ninkiiba isla garteen inay faraska ku dul aasaan ceelka si aanay dadka kale meesha maraya iyaguna ugu dhicin oo dhibaatadu keligii ugu eekaato waxay bilaabeen dadku inay godkii aasaan ay faraskii ku dul aasaan kolba ciidda ay godka ku soo ridaan ayaa faraska dhabarka kaga daadanaysay faraskuna dhabarka ay u dhaqdhaqaajinaysa ay ciidda uga daadato aakhirkiisay godka u buuxinayeen oo faraskuna ciidda ay ku daadiyaan qalbuus kaga daadinayay ayuu aakhirkii godka intuu soo buuxsamay faraskii inuu si kadiisa uga soo dhex booday markaad daawada qisadan waxaynu ka qaadanaynaa dadka horumarka sameeya waa dadka mar walba dhibaata ku dhacda dhabarka u laxa si ay uga daadato dhibaatadaasi ay u dhaafaan sababta tobanaad ee faqriga uga bixinayna waa inagoo hawlaheenna dubi dhigano caajis dartii wax kastan qabsays leenay waa beri iyo beri dambe u dhiga sidana waxaa kaaga lumaya wakhti badan ood wax kale ku qabsan lahayd shaqooyinka dubi dhigatoyo dhan way isku kaa wada gaadhi kadibna waxay kugu noqonaysaa culays fulintoodu fikrad fiican haddaynu helno waxaanu idhahnaa beri ayaan qaban doonaa fursad haddayna soo marto waxaanu idhahnaa beri ayaan ka faa'iideyn waxaasoo dhan waa caajis gudaheena ku jira haddii aan hore iskaga qaban weyno weligan faqri ka bixi mayno